إن قفكوا أجاده الاعتزاز بالإسلام وحامديها أتكلم قليسه iyo wareerkaasi socda waa qiiq iyo noise iyo smoke way inaad ka dhex baxdo oo risaalada islaamka ee dhabta ogaato yaa tahay inaad ogaato islaamnimada iyo Mareykankuna way is ogol yihiin oo constitutionka Mareykanku marka la eego wadankan Mareykanka waa wadamada xurriyatul diin iyo freedom of religion inaad diintaada exercise garayso wadamada kowka away waxaan nasiib u leenahay inaynu masaajidan rabna dhisan karo dastuurka muwaadiniinta aan ka nahayna oo inoo kafaalo qaaday arintaas marka isma diidayaan islaamka iyo Mareykanimadu way is wada socdaan ha ka xishoonin islaamkaaga marka ku faan ummadana bar walaalayaal khudbadeen maanta waxay ku saabsan tahay mowduuc muhiim ah oo ah qofku inuu aziis ku noqdo inuu ku faano inuu jeclaysto inuu ilaahay ugu mahad celiyo inuu muslim yahay al-iftikhar wal i'tizaz bil islam mowduuc muhiim awey qofka muslimka ah waxa la rabaa inuu ogaado inuu yahay qof ilaahay uu ka dhex doortay ummadaha kale kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu ka warramay quraanka kariimka ah islaamka wuxuu sheegay inuu yahay inna diina 'inda allahi al-islam diinta eeba uu doortay inay tahay diinta islaamka marka islaamnimada qofku uu istislaam iyo ilaahay u hogaansamo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rumaysto waa inay u ahaato fan iyo rayn iyo waxa qofku badge of honorka sharafta uu wato ee uu ku faanaya in islaamka noqoto dhageysan nabiyullaahi ta'ala nuux ilaa anbiyada markii laga soo bilaabay nabiyullaahi ta'ala nuux wuxuu ku faanay islaamnimadiisa wuxuu yiri wa umirtu an akuna min almuslimiin waxa la ifaray inaan muslim noqdo nabiyullaahi ta'ala nuux baa dhahaya nabiyullaahi ta'ala maxamed nama soo saarin markaa sallallahu alayhi wasallam nabiyullaahi ta'ala nuux islaamnimadu ku faanay dhageyso nabiyullaahi ta'ala ibraahim oo abul anbiya mataqaana khaliilur rahmaan ah waxa uu sheegay markii uu ilmihiisa la hadlayay dardaaran buu sameeyay markuu adduunka ka tagayay waxa uu eeba sheegay dardaarankaasi wuxuu ahaa ma wuxuu kula dardaarmay lacag sameeya ma wuxuu kula dardaarmay jaga iyo position raadsada ma wuxuu kula dardaarmay inay noqdaan dad adduunyada u tartama dardaaranka uu kula dardaarmay ilmihiisa qofku ilmihiisu adduunka ugu jecel yahay dardaaranka ugu fiican ilmihiisu siinaya marka uu adduunka ka tagayo dhageysan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo uga warramayo wa wasa biha ibraahimu bani nabiyullaahi ta'ala ibraahim wuu u dardaarmay ilmihiisii wiilashiisii buu dardaarmay wuxuu ku yiri marka oo banihi wa yaqubna wuu dardaarmay ibraahim kaliya maaha dardaaran ay iska dhaxleen weeye ibraahim iyo yaqub wuxuu ahaa wiilkii ibraahim buu ahaa maxay u dardaarmeen yaa baniya wiilashayadiiyo inna allaha astafa lakum ad-din ilaahay wuxuu idin doortay diinta ayuu idin doortay fala tamutunna hadimanina illa wa antum muslimun idinkoo muslim ah mooyaane hadimanina dardaarankoodu kaas oo ah ilaahay diin buu idin doortay risaalu idin dhiibay umma wuxuu idin ka dhigay muslima taa ku dhinta waalidka waxa la rabaa marka qurbaha jooga iyo ka gudaha jooga iyo ka meel kasta jooga ilmihiisa maxaa uu koowaad ee uu kula dardaarmaya ma waxaad kula dardaarmi inaa uu successful ku noqdo oo dhakhtar fiican ama lawyer fiican ama ganacsade fiican ama computer engineer fiican noqdo kaliya miya dardaaranka asalka ee ilmuhu ku badbaadayo fi dunya wal aakhirah waa dardaaranka uu nabiyullaahi ta'ala ibraahim kula dardaarmay iimaanka weey ilmaha haddaanad islaamka ka dhisin haddaanad barin inuu muslimnimadiisu ay tahay waxa ugu muhiimsan ee inuu ku far adayga la rabo waa laga yaabaa college 100,000 inaad ka dhiibtay ilmahaaga college 100,000 qiimaheedu yahay inaad ka dhiibtaa laga yaabaa iskuulkiisa inaad lacag badan ku bixisaa laga yaabaa caafimaadkiisa cuntadiisa hoygiisa laakiin dardaaranka dhabtii waa maxay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoon muslimiin ahayn ha dhimanina weeye dardaaranka ugu muhiimsan marka waa in ilmaha horta taa la baro oo cibaadaadka iyo salaada iyo soonka iyo shacaa'irta islaamka guriga looga soo bilaabo weeye dardaaranka islaamka waa ka nabiyullaahi ta'ala yuusuf sidoo kale ilaahay buu bariyay subhanahu wa ta'ala muxuu ka bariyay ilaahay subhanahu wa ta'ala tawaffani musliman eebow i oofso anoo muslim abu yiri tawaffani musliman anoo muslim ay oofso wa alhiqni bis salihin dadka wanaagsanna igaarsii oo i haleeshii dadka ay gaarsii buu yiri marka dardaaranka ugu weyn
waxa ugu weyn ee lagu faano qabiil ma aha isra ma aha dhalasho kale ma aha baajka ugu weyn ee qofku sito ee inuu ilaaliyo la rabo waa islaamka weey anbiyadana sida aad ka arkayso way isaga wada dambeeyeen nabiyullaahi tacaala waxa ku xigay Muusa nabiyullaahi tacaala Muusa muxuu sideebuu ugu faanay islaamka waqala Muusa ya qawmi in kuntum aamantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimiin dadkiisa markuu la hadlay war hadii aad tihiin ummad muslimiin ah oo ilaahay rumaysan isaga tala saarta buu yiri ha muslimnimadu ayuu marxaati uga dhigtay oo uu yiri muslimnimada hadaad muslim dhaba tihiin dhagaysan nabiyullaahi tacaala Ciisa wuxuu yiri falamma ahassa Ciisa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah nabiyullaahi tacaala Ciisa uu ka shikiyay ha oo wuxuu yiri dadkani ma lagu rumeeyay mise lagu ma rumeeynin ha markaas yiri man ansari ila Allah wariya ilaahi igu kaalmaynay buu yiri qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun waxay yiraahdeen ha waxaan nahay dad ku rumeeyay waa xawaariintii waa intii isaga raacday marxaatina ka noqo inaan nahay dad muslimiina marka islaamnimadu maanta adduunka waxay ka tahay wax la isku xuuqiyo waxa laga yaabaa news media markaad aragto ee aad dhageysato idaacadaha caalamka telefishinada qoraalada la qorayo social media qofku muslimnimadiisu inay liability ku noqotay culays uu sito ha oo magacayga muslina iyo ma taqaan dalashadayda muslim ahaan ka soo jeedo iyo ummad muslina baan ka mid ahay culays inay noqoto maaha waa inay faanka koowadeed ku faanto dhalashadaadu abil islaam la abali sibahu abil islaam la abali siwah ani waxa aabahaygu yahay oo aan ku faanaya islaamnimada weey dhalinyarada marka waxa laga rabaa dadka wax hadda soo kacaya ee identity crisis ku haysta waxa laga rabaa ay isaga qasan tahay islaamku macna noocee ah ugu fadhiyaa shakhsiyadayda iyo jiritaankayga iyo qofnimadayda iyo dhaqankayga halkee buu islaamku ka galaya anoo waliba Mareykan jooga anoo Minnesota jooga islaamku ma martiba ma dhaqan aan wataba ma wax uun aabahay aan ka soo gaariyo hooyadayba ma wixii wax markii raban aan qaadan karo markaan rabana ka tagi kara miya falsafad noocee ah weey waa in loo sheegay inuu yahay waxa kaliya ee la raba inuu ilaashado number 1 inuu ilaashado wa wasa biha Ibrahim bani marka islaamku walaalayaal in lagu faano oo qofku aziis ku noqdo oo uu ku faano waa arin aad iyo aad laga maarmaan waxa muhiim marka qofku uu islaamnimada ku qanco oo ilaahay sida u rumeeyo ee uu noqdo qof islaamnimadiisa aan ka faanaynin oo ku faanaya markuu noqdo oo badge of honor-ka uu sitiyo sharafta uu sitaa islaamnimadiisa ay tahay oo uu og yahay ilaa nabiyullaahi tacaala nuux ilaa nabiyullaahi tacaala maxamed sallallahu alayhi wasallam kull al-anbiya silsilada istabadheer isirkiisa iyo abtirsigiisa islaamnimada uu ku abtirsanayay inay ilaa halka xiriirsan tahay qofku markuu ogaado wuxuu ogaanayaa in cid wax ka qaadi kartaa jirin cid wax ka qaadi kartaa ma jirto oo ilaahay baad aaminaysaa markaa fa alayhi tawakkalu ilaahay aamin buu yiri aamina nabiyullaahi tacaala Muusa nabiyullaahi tacaala Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay qofku marka uu isku kalsoon yahay oo islaamnimadiisa uu ku kalsoon yahay ummadoo dhan haday u ururto inaanay waxba ka qaadi karin dhagaysa ibn Abbas wuxuu yiri rasuulka ayaan la saarnaa kuntu khalfa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yawman maalin ma rasuulka la saaraa dameer uu fuushanaa baan la saaraa buu yiri markaas uu gadaal soo fiiriyo wuxuu yiri yaa gulaam wiil yahow yari ucalimka kalimaat waxyaabo yar yar baan ku baraya rasuulku muallim naas alkhair buu ahaa wanaagu dadka bari jiray wuxuu yiri wax yar baan ku baraya waxa wuxuu yiri ihfadillah yahfadka war ilaahay xifdi adigana uu ku xifdina إلهي حدوديسا إيو واجباتكيسا كصوبح إلهي أدقنا وكو حفتين ها احفظ الله يحفظ تجده تجاك هرت هذا كهلي هداد إلهي حفتده إذا سألت فاسأل الله مركاد وحويديستين عدنا بريداء ربطه أو قف وحويديسته إلهي ويديسو ها وإذا استعنت فاستعن بالله كالما مركاد ربطه إلهي كالما يسو أو ويديسو واعلم واحد أقاتها مركا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أمتهم هذه سجود تكتسي أي وحقوق فائديان لن ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك وحي إلهي كو قريمو يعني وحكى لو أمتك ما تركرته ولو اجتمعوا أن يضروا عليك إلى أن يضروك حتى إني كردبان ربانا وحكى لك ومد بكرام وحي إلهي قريمو يعني مركا قفك مسلم كي وكلسون يعني مركا
dhalashadaadina waad ogtahay identitygaaga oo islaam ah islaamkaasina in ilaahay uu yahay qofka wax ka qaadi kara ama wax ku dhiyeeri kara cid kalena aanay wax ku yeeli karin in qofku uu ogaado al-i'tizaaz bil islaam waxa midhiha aad ka maqlayso iyo wareerkaasi socda waa qiiq iyo noise iyo smoke way inaad ka dhex baxdo oo risaalada islaamka ee dhabta ogaato yaa tahay inaad ogaato islaamnimada iyo mareykankuna way is ogol yihiin oo constitutionka mareykanku marka la eego wadankan mareykanka waa wadamada xurriyatul diin iyo freedom of religion inaad diintaada exercise garayso wadamada kow ka awey waxaan nasiib u leenahay inaynu masaajidan rabno dhisan karo dastuurka muwaadiniinta aan ka nahayna oo inoo kafaalo qaaday arrintaas marka isma diidayaan islaamka iyo mareykanimadu way is wada socdaan ha ka xishoonin islaamkaaga marka ku faan ummadana bar